oo dental technology ah way waa tahay soo dhawaada dental technology waa lix arday oo halkaa ka qalin jabiyey waa tahay halkii ay ku lahaayeen soo dhawayntooda markay dhammaystaan goobtii ay ku lahaayeen maamuuska ayay iyaguna insha allah fadhiisan doonaan soo dhawaada ardayda kulliyadaha kulliyad walba goobta loogu talagalay insha allah ayuu fadhigeedu noqonayaa waad mahadsantihiin way halkaa markaynu marayno 330 arday ayaynu qorshaha ku haynaa inta aanu labisku la fogaanine aan soo geline soo socota marka laga reebo inteena badina waynu soo galno way mahadsan yihiin ha fadhiistaan iyaguna halkii ay ku lahaayeen goobta waa tay kulliyad walba halkeedii ha fadhiisato kulliyad walba halkeedii hay noo fadhiisatay insha allah waa tahay sidaa aynu u aamusannahay nidaamkii inoogu saxeeyay insha allah inoogu saxnaado dhammaantiin waxaad wakiilutihiin ardayda edna university akhlaaqda aad muujisaan waxay ammaan u tahay jaamacaddiina waxay ammaan u tahay macallimiintiina waxay ammaan u tahay hormuudadiina waxay ammaan u tahay guddoomiyaashiina iyo ku-xigeenadiina iyo madaxdiina oo dhan waa ammaanta aad muujisaan mustafa laba arday baa ku hadhay oo ah labada ugu sarreeya waa tay ardaydii haddii aynu u sacabtumay oo aynu intaa ku dhammaynay maxaad u malaynaysaa madaxdiinu markay soo gelayso brofesoradiinu markay soo gelayaan guddoomiyihiinu markuu soo gelayo ku-xigeenkiinu markuu soo gelayo qiyaasi sacabka qabyaaladu gelaya markaa ilaa madaxdiiniya soo maaha iyo mashxaraduba to hagaag waxaan soo hori doonaa mar dhow insha allah daqiiqada gudahood iyagoo wada koofiyad weyn leh iyagoo dreskooda qaba madaxda jaamacadda oo ay soo horgeli doonto guddoomiyaha iyo aasaasaha jaamacadda doctor edna aadan ismaaciil guddoomiye ku-xigeenka akademiga waxa weeye professor axmed maxamed cadaad guddoomiye ku-xigeenka maamulka professor mustafa xasan daahir university advisor dr maxamuud cabdulqaadir agaasimaha maamulka muno faarax aadan hormuudka kulliyadda beeraha dr inos g okoro hormuudka kulliyadda xanuunada guud waan sii sheegayaa laakiin hadda diyaar bay u yihiin inay noo soo galaan hormuudka kulliyadda maxaan ku idhahdaa xanuunada guud dr alamayahu berey kahsay way hormuudka kulliyadda maamulka iyo maareynta richard jinja arina hormuudka kulliyadda combyuterka isbarbar taagno waan soo dhaweynaynaa insha allah intaa markay tahay waxaynu sugaynaa markaa madaxda iyo marti sharafta inagala soo qeyb gelaysa inay halkan inagu yimaadaan oo marka ay madaxdu inoo soo wada gashana aynu bilaabi doonno insha allah socodsiintii jadwalka iyo taxnaha aad baa mahadsantiin
وكم كوبي لبعتين كيف نتبين جامعة أدنى آدم university فتح بقول يوم كوبي أفكر أطيع أي كيف نتبين ساكا جامعة أدنى آدم فتح بقول يسقالي صوت أطيع وحي كيف نتبين يان درجة الكوبات أما هي الكوبات جامعة أمس تدريجا هلك لبعض أطيع أي يكون كيف نتبين دونا درجة لبعض أما هي لبعض جامعة أمس ماسترتا حبيت قلتبينتا ayaa waxa ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo sidoo kalena uu iman doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si toos ah ayaad halkan ugala socon doontaan dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi soo gudbinta xafladda qalinjabinta dufcadda 2022 ee ka qalinjabinaysa jaamacadda Adna University ee magaalada Hargeysa sanadkan 2022 jaamacadda Adna waxaa ka qalinjabin doona haddii ay bedelo 340 arday ayaa guud ahaan ka qalinjabin doona jaamacadda 339 waxa ay dhamaysteen heerka koowaad ee jaamacadda halka 2 arday ay iyagu ka dhamaysteen heerka labaad amase masterta xafladda ayaa waxaa ku sugan guud ahaan ardayda qalin jabinaysa iyo waalidiintooda sidoo kale waxaa ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba qaranka sidoo kale waxaa goordhow la filayaa inuu xafladda ka soo qayb galo amase uu yimaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo weliba xubno ka mid ah golihiisa wasiirada si toos ah ayaad daawadayaal ugala socon doontaan si qurux badan uga wada qayb galo soo gelitaanka madaxda markuu inoo bilaabo waa marka shaxshaxdiinu bilaabmayso ودررتي للتاجي ردفي على كيني دلانكينو نبض كسر ودررتي للتاجي ردفي على كيني دلانكينو نبض كسر دافها وانا كنسها وحيد عيبها لكيس عياها وطلي دبتا اللولو وما دافها وانا كنسها وحيد عيبها لكيس عياها وطلي دبتا اللولو اللولو سومالنا اللولو فرح محمد فارح وين الجميع siday farxaanta u dhameen dhigood iyo qayrkood u dhaafeen allahu dhow Somaliland dabadii wanaageeda qalday siday farxaanta u dhameen dhigood iyo qayrkood u dhaafeen allahu dhow shacabkii madaxda jaamacadda waxaa hor socota Victoria Edna Aadan Ismaaciil gudoomiyaha iyo aasaasaha jaamacadda u kaca madaxdiina in laga sir taagaano way fiican tahay way soo dhawaada Victoria Edna Aadan Ismaaciil Professor Ahmed Maxamed Cadaad Professor Mustafa Xasan Daahir Dr. Maxamuud Cabdulqaadir Muuna Faarax Aadan Dr. Inos
دكتور ألمياهو دكتور ريتشارد دكتور ديفيد أوفولو أيان عبد الحسين نوار ورسمة حسين محمد نور دكتور محمد أحمد عبدي عواري يوسف موسى إبراهيم علي حسن إيه سمطر محمد إسماعيل ومدحدي كل ده كلا دول جامعة إدنا آدن يونيفرسيتي إدنا آدن يونيفرسيتي واي آدنا ما سنتين إيه فريستا يكسيجا himilada dalkeena ayaan ka tubtiisa haysta filkiyada oo ka iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku hooray ilaaca cirka ku hooray وهجاج waxaynu soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xubnaha golayaasha qaranka ee la socda madaxda sharafta badan ee dalka mudanayaal iyo marwooyinba haddii aynu askar ahaan lahayn waxaynu odhan lahayn mudane madaxweyne salaantaada waxa u diyaara boqolaal oo ku labisan koofiyada afargeesa iyo jubadahoodii sacabkii salaan qiimo badan ayaynu u soo gudbinaynaa madaxweynaha iyo inta farxad ka shaba hagaag insha allah mar haddii madaxdii dalka ugu sarreysay ay noo joogaan waxaynu diyaar u nahay in aynu gudageli doono oo aynu bilaabi doono xafladeennan oo ay ku qalin jebinayaan arday tiro badan arday ka qalin jebinaysa kulliyadaha midwiferyga nursingka medical laboratory diploma in nursing pharmacy public health dental surgery nutrition dental technology iyo laba arday oo master ah 341 arday oo ka qalin jebinaya Edna Adan University oo jaamacadda maanta aynu farxadeeda halkan diyaarka uga nahay diyaar bay inoo yihiin dhammaanba madaxdii iyo mas-uuliyiintii nagala soo qayb gashay maamuuskii ugu sarreeyey bay ardayda nasiib u heleen in madaxweynaha qaranku uu kala soo qayb galo xafladan qalin jebinta ee ay intaasoo arday ku qalin jebinayaan marwo Edna Adan oo ka mid ah tiirarka Somaliland oo iyana ku sultan qarannimada jamhuuriyadda Somaliland oo qof aanay dariisadeenu lahayn oo ologeenu aanu lahayna waxaynu markaa diyaar u noqon doonaa insha allah xafladeenna in aynu gudugeli doono inta fadhiga uu inoo saxmayo insha allah هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إن الله يوفى الصابرين قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. الله يبارك خير يوناك الله أكو أبال مريو ilmo yar oo ugu sharaf badan wax la dhalo oo lagu tabco oo la tarbiyadeeyo oo wax la baro weyn jaamacadda Edna Mater jaamacadda Edna University raaliga hada jaamacadda Edna University ayaynu xafladeedan maanta halkan ugu dabaaldegaynaa waa tasugayso xuduudaheeda iyo amnigeeda iyo muwaadiniinteeda intaba Edna waxay cadow tiro badan ku mutaysatay halka ay ka taagan tahay Soomaaliland iyo jiritaankeeda iyo mowqifka adag ee mar walba ay ka taagan tahay social media wuxuu heegan ugu yahay oo cadawga Soomaaliland idna ay dagaal badan kula jiraan in ay niyadjabiyaan in ay propaganda u sameeyaan page aan jirin iyo magacyo aan jirin in Facebookada ay ku soo qoraan inana waxay la tahay daqiiqad barkeed haddii aynu dhammaanteen istaagno oo aynu edna taageerno ka warrama hal minute aynu u wada kacno taageerada Eedaadan Ismaaciil oo aynu leenahay cimriga Allah u dheereeyo caqligana Allah u barakeeyo cadowgeeduna insha Allah waxba yeelmay fariista mudan madaxweyne iyo mudan ayaa dhamaantiiba Eedaadan waxay taageero buuxda ka haysataa shacbigeeda iyo ummadeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda iyo madaxdeeda saadaradeed baanay cidina waxba yeeli karin insha Allah in ay firfircooni ka sii qaado mooyaan waxaynu u sara kacaynaa astaanta heesta calanka jamhuuriyadda Somaliland oo ay inoo shidi doonaan qoliyaha farsamadu astaanta iyo heesta calanka Somaliland samaku
aad baa mahadsantihiin degjiga oo safar dheer oo soo galay wasiirka deegaanka wasaaradda caafimaadka xildhibaan maxamed jaamac safaaradaha taiwan etoobiya iyo jabuuti waa la casuumay aan filayaa inay joogaan dhammaan marti sharafka sanadka jaamacadda aadna jaamac muuse jaamac marwo kaltuun taliyayaasha ciidamada qaranka iyo dhammaan saxaafadda ardayda waalidiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada jaamacadda edna aadan qalinjabinta maanta aynu u dabaaldegayno arday muddo 4 sano ah imtixaan aad u adag aanu soo marinay dahabku wuxuu ammaanta ku yeeshay dabka uu maro iyo inuu yahay shay ceebla ardayda maanta ka qalinjabisa jaamacadda aadna waa dahab waa arday ceebla oo laga soo shaqeeyey ciidamada ayaa lagu ammaanaa discipline iyo kala dambeyn jaamacadda aadna discipline iyo kala dambeyn baa ka jira waxaan hubaa muddadii ay waxbarashada socotay inay ardaydu dhibsan jireen hawsha faraha badan wakhtiga kooban iyo tacabka quality-ga iyo tayada laga rabo laakiin maanta ayay garanayaan waxaanu shaki igaga jirin sidii kuwii ka horreeyey marka ay bulshada u tagaan inay shaqo fiican qabanayaan